qodobada wararka ugu waaweyn saaki waxa ay kala yihiin Ra'iisul Wasaare Khayre oo xalay kormeer ku tagay isbitaalka xoog ay ku jiraan askar ku soo dhaawacantay howlgaladii ugu dambeeyay ka soconaya gobolada dalka. Hogaamiyaha Al-Shabaab oo markii ugu horeysay ka hadlay muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeya. Dowladda Djibouti oo wada dadaaladii ugu dambeeyay ugu jirtay sidii ay ku hanan lahayd kursiga ay ku matalayso Afrika ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Dagaal la xmaray shacab hubeysan xoolo dhaqato ay ururka Al-Shabaab oo ka dhacay magaalada Xudur ee gobolka Bakool. Dowladda Soomaaliya oo dalka Turkiga u dirtay saraakiil xigeenno ka tirsan militariga Soomaaliya. ciidanka daraawiishta Jubbaland oo saaki dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wada meel u dhow degmada Jamaam ee gobolka Jubbada Hoose. Mareykanka oo la sheegay inuu ogaado halka laga soo riday gantaalkii lagu weeraray ceelasha saliidda ee dalkaasi Sacuudiga. Ra'iisul Wasaaraha Canada oo wajahaya fadeexado hor leh xilli ay socdaan olole doorasho dalkaasi. markale subax wanaagsan waa 20ka bisha 9 sanadka 2019 saaxiibayaal u diyaar garooba wararkaas oo dhan. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa xalay kormeer ku sameeyay kormeer ku tagay isbitaalka xoog ay ku jiraan askar ku soo dhaawacantay howlgaladii ugu dambeeyay ciidanku ay ka sameeyeen gobolada dalka Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa kormeer ku tagay isbitaalka xooga dalka Soomaaliya oo ay daryeel caafimaad oo hor leh u sameeyeen askar ka tirsan ciidanka dawladda oo howlgaladii ugu dambeeyay ka dhacay gobolada dalka gaar ahaan labada Shabeelle ku soo dhaawacmay. maamulka isbitaalka xoog ayaa Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ka dhageystay warbixino ku saabsan hanaanka ay u shaqeeyaan isbitaalka iyo qalabka ay haystaan iyo adeegyada caafimaad ee loo fidiyo askarta ku soo dhaawacantay howlgalada ka soconaya gobolada dalka. isbitaalka ayaa la geeyay askartii ku soo dhaawacantay dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe gaar ahaan mas'uuliyiin ka tirsan gobolka waa mas'uuliyiin ka tirsan Shabeellaha Hoose oo ku soo dhaawacmay dagaaladii ugu dambeeyay qaraxyo ka dhacay halkaas oo la dhigay isbitaalka xooga halkaana lagu dabeynayo. hogaamiyaha Al-Shabaab ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay muranka badda ee u dhaxaysa dowladaha Soomaaliya Kenya waa dowladda Soomaaliya iyo waliba Kenya oo Kenya ay ku soo xadgudubtay biyaha Soomaaliya. hogaamiyaha Al-Shabaab ayaa iska soo duubay canjalad maqal ah oo soconaysa 20 daqiiqo oo kaga hadlay arrimo badan oo ku saabsan xaaladda Soomaaliya. ururka Al-Shabaab oo dagaal kaga soo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya ciidamada AMISOM ayaa markii ugu horeysay waxa ay ka hadleen muranka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya. Ameerika Al-Shabaab oo lagu magacaabo Axmed Diiriye Abu Ubayda ayaa canjalad maqal ah uu soo saaray waxa uu ku sheegay in ururkooda ay aqoonsan doonaan natiijo kasta oo ka soo baxda maxkamadda ICJ ee khilaafka badda ee Soomaaliya iyo Kenya. waxaan ummadda ku wargelinaynaa in Al-Shabaab ay ka soo horjeedaan gaashaankan ay u daruuri doonaan go'aan kasta oo ka soo baxa maxkamad ku sheega caalamiga ah ku saabsan loolanka badda ee Soomaaliya ee taagan. waxaan caalamka u sheegaynaa in badaheenu aan marna gorgortan aan laga gali doonin martina kama noqon doono ayaa lagu yiri canjalada maqalka ah ee uu baahiyay hogaamiyaha Al-Shabaab Abu Ubayda. Ameerika Al-Shabaab ayaa sidoo kale Kenya ku dhaleeceeyay inay haysato dhul Soomaaliyeed haddana ay doonayso inay ku darsato biyaha Soomaaliya. canjalada maqalka uu soo duubay hogaamiyaha Al-Shabaab oo ah mid dhinacyo badan kaga hadlay ayaa waxa lagu yiri waxaa laga rabaa dadka muslimka ah inay ku baraarugaan in Kenya ay soo liqday dhul baaxadiisu aad u weyn tahay haddana ay doonayso damaceedu inay ku darsato biyaha Soomaaliya. Ethiopia waa tan hadda loo saxiixay dekada Doora dalkeenu waxa uu ku socdaa in la xaraasho ayaa lagu yiri canjalada maqalka ah ee Abu Ubayda uu baahiyay. hogaamiyaha Al-Shabaab ayaa canjalada maqalka uu soo saaray waxa ay soconaysaa muddo 20 daqiiqo wuxuuna kaga hadlay arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin dowlad goboleedyada maalgashiga dalka arrimaha ka soconaya Kismaayo iyo shirka Dhuusamareeb ee lagu dhisayo galmudugta cusub. dhinaca kale shacab hubeysan ayaa iska caabiyay Al-Shabaab dagaal ku dhaxmaray deegaano hoosaga degmada Xudur ee gobolka Bakool. shacabkan oo ka dhidhiyay kadib markii ay sheegeen in Al-Shabaab ay labadii maalin ugu dambeysay xoolo badan ay si xoog ah kaga qaateen. Abdulqaadir Jakarta warkan dhameystiraya.
faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxayeen dagaal xubno ka tirsan ururka al-shabaab iyo dad xoololey ah saacadii lasoo dhaafay ku dhex maray deegaano duleedka ka ah degmada xudur ee xarunta gobolka bakool dagaalka ayaa ka dambeysay sida ay sheegeen horjoogayaasha dadka xoololeyda ah in al-shabaab ay xoog uga kaxaysteen geel fara badan taas oo keenta in ay la dagaalamaan islamarkaana ay kasoo horjeedaan inay xoolahaas xoog kaga kaxaystaan dagaalka ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka lagu magacaabo yabyab oo hoos taga degmada xudur waxaana la sheegay intuu dagaalka socday inay ku geeriyoodeen 4 ruux halka 2 kale ay ku dhaawacmeen kuwaas oo markaasi ah labada dhinac ee al-shabaab iyo weliba dadka xoololeyda ah ee dagaalamay ugaas cali dirir waxa uu ka mid yahay abaabuliyaasha deegaanka ee isku biirsaday inay la dagaalamaan ururka al-shabaab waxa uuna sharaxaya dagaalkii dhex maray dadka xoololeyda ee suruursaday ee hubeysan iyo ururka al-shabaab iyo waxa xilligan keenay in deegaano ka tirsan gobolka bakool ay ku dagaalamaan wanoona wali ballan qaadane intii qawaarijinta dadka DJ waraabaw oo cadawka intii dadka shacabka naftii oo imaal soo banaysidi intuuna la dagaalan diyaar bihiin intii la dagaalantan diyaar ma yeeda sin salaamana sababta ala qaawni qasabtay oo la qaawni la raayidanka markii hore ata la qaran nagadi dawladda qaramayti dhabaatamayni qasabtay niman khawaarijiin oo adduunka dawladooyinka islaamiga galab oo la nagadi diintina ka baan sheegadaw ya dhibaatadiyo dadka ehelka walaalaha migil ibalaambale na gooriyaw sablaw aw jan gooriyaw oo hantadiyo nan dhaaw ya ka dul qaadwayni markaas uu noo sabaabulno dawladda hoos koono mas'uuliyiinta dawladda hoos koono oo garabsano adigu ku isku dhoon ya go'aanka san qaadan marka laga soo tago dagaalka dad xoololey ah iyo ururka al-shabaab ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka bakool iyo hore waxa u jirtay il markaasi bilihii la soo dhaafay markaasi dad la magac baxay ama shacab ah oo idarursado oo la magac baxay macbuusley ee deegaano iyo degmooyin ka tirsan labada shabeelle iyo hiiraan ee ku dhex mareen al-shabaab waxaana weli dagaalka shalay markaasi ka dhacay deegaano ka tirsan degmada xudur ee gobolka bakool wala dhexeeyay al-shabaab iyo dadka shacabka ee sadhankooda weli ka hadlin ururka al-shabaab dowladda Djibouti waxa ay wada dadaaladii ugu dambeysay sida ay ugu guuleysan lahayd kursiga ay ku matalayso Afrika ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay kursigaas oo ay markan tartan xoogan kala kulmayso dowladda Kenya dowladda aan walaalaha lahayn ee Djibouti ayaa wada dadaaladii ugu dambeeyay ugu jirta sida ay ku hanan lahayd matalaada kursiga Afrika ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay kadib markii loolan adag oo ay taageerayaan midowga Afrika ay ku raadinayso in Kenya ay kaga guuleysto kursigan wasiirka arrimaha dibadda ee wadankaasi Djibouti ayaa la aaminsan yahay in maalmihii dambe dadaalo xoogan ugu jiray isagoo sheegay in rajo wanaagsan ay ka qabaan in kursiga ay ku matalaan Afrika Djibouti ay hanato Maxamuud Cali Yuusuf wasiirka arrimaha dibadda ee wadankaasi Djibouti waxa uu sheegay in Djibouti uu yahay dal yar laakiin haddana ba Afrika uu saameyn weyn ku leeyahay Djibouti wuxuuna sheegay in ciidamadooda ay ka horgalaan wadamo badan oo dhaca qaaradda Afrika iyo waliba waa galbeedka iyo bariga Afrika waxa uu sheegayaa rajada ay ka qabaan in Djibouti kursiga ay ku guuleysto ay tahay mid aad u wanaagsan inkastoo uu qiray in dowladda Djibouti ay waa dowladda Kenya oo ayna dadaal badan ku bixinaysa sidii kursigan ay ugu guuleysan lahayd xagga maaragtay kaalintaad ka qaadanaysid nabadda iyo sida nabadda adduunka aad u xoojin lahayd oo doorkaad ka ciyaaraysid ayaa horta qiyaastu ay tahay qiyaastaas haddaad xalka ha dhigtid Djibouti meel kaalin fiican bay kaga jirtaa maanta haddii ciidana shisheey aan dalkeena ku hayno waa hadafka ugu horeeya waxay weeyaan inaan la dagaalanka argagixisada la dagaalanka burcadbadeedka deganaashada ama gobolkeeni waa ka shaqaynteedii weeyaan waxaan anaku aan hadaf ka leenahay ciidanada shisheeye dalka aan ku soo dhaweynay talabaad waxaad ugu wataa ciidanada shisheeye inteena Djibouti imanin Djibouti hawlgal badan oo qaramada midoobay ciidanadoodii ay meel fiican ay kaga jirtay ayaa taariikhdu ay sheegaysaa waxaan tagnay Côte d'Ivoire xataa waxaan gaarnay ciidanadeeni waxay gaareen Haiti meel fog bay ku taalaa kolka
ciidanaan ku lahayn Haiti, Cote d'Ivoire, Centrafrique, maanta RDC, Congo, ninka ma aragtay ciidanada qaramada dawlad xukuma waa nin reer Djibouti weeyaan waa Colonel Abdurazaq waa la garanaya waxaad ogaataa yarinteeni ama dalka yaranteeni yani laguma qiyaasi karayo wax qabadkeeni waa aad buu uga weyn yahay ma aragtay wax qabadkaasi sidii aan aragtida la naga qabo kolka horta kaabaan adeegsanaynaa talabaad mabaadi baan aaminsanahay dal yar baan nahayo dalka yarna wuxuu ka shaqeynayaa daris wanaag wuxuu ka shaqeynayaa sideeba gobolka ma aragtay siyaasadeedii ay u fiicnaan lahayd oo dalalkiisu soo dhawaan lahaayeen dad yar mar kastaba wuxuu leeyahay aragti ka duwan dalalka waaweyn taasina waxa weeyaan badi waxa looga helaa dalka yar waxa la leeyahay dana gaaro oo danaha dalalka kale saameynaya ma wato laakiin kulleeyba had laga sugayo kaaba ayuu fiicnaan karaya ayay ra'yigu u badan yahay kolka rajadeenu waxa bay u weyn tahay rajadeenu aad bay u weyn may waanan ka shaqay codbixin dhacday bishii Agoosto ayaa dalalka xubnaha ka ah midowga Afrika ee ka dhacday dalkaasi Addis Ababa caasimada wadanka Ethiopia Addis Ababa ayaa waxay dawladda Kenya codbixinta xilligaas waxa ay heshay codad gaaraya 37 cod halka Djibouti xilliga ay heshay 13 cod oo kaliya waxaana la saadaalinayaa codadka ay ka heli karto Afrika Djibouti inay noqon karaan kuwa aan saas u badnayn laakiin Djibouti ayaa wali ku adkeysanaysa tartanka liiska ay la geli doonto wadanka Kenya in markan la tagi doono golaha amaanka halkaas oo meesha kama dambaysa ee madaxda ama dalalka Afrika codadkooda ku dhiiban doonaan laguna shaaci doono kursiga Afrika ee golaha amaanka aan joogtada ahayn cid ku matalaysa horey maysan u dhicin wadan laba dal ah oo ku loolamay midowga Afrika walina kursi loolamaya natiijada ugu dambaysa ee kursiga ay ka dhaxaysa shirka New York ee golaha amaanka ee qaramada midoobay dowladda federaalka Soomaaliya dalka Turkiga waxay u diraysaa saraakiil xigeenno kuwaas oo dalkaasi tababar ku soo qaadan doona askarta loo diray wadanka Turkiga ayaa kuwa tababar ku soo qaatay magaalada caasimadda Muqdisho tababarkaasna uu soo xiray madaxweynaha Soomaaliya laguna tababaray xerada Turkiga ee gacanta ku haysa Muqdisho ku taala wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Masar Amar Dambe waxa uu sheegay in saraakiil xigeenada loo diray wadanka Turkiga ay tahay kuwa la doonayo in wax badan ay ka bedelaan nidaamka ciidanka ee dawladdu ay labadii sano ee u dambeysay ay sheegaysay in wax badan ay ka bedeshay waa saraakiil xigeenna oo runtii kuliyadda Turksom waa banduulkii ugu horeeyay ka soo baxay oo runtii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo u soo xiray tababarkoodii waxaan u direynaa koorsooyin oo dheeraad ah si takhasusad ay u soo qaataan qaarkooda kulli waa soo daahi doonaan qaarkoodana dawaaban siyaabo kala duwan ayay wax u soo qaadan doonaan waxayna ka mid yihiin saraakiishan iyo saraakiil xigaanadani ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa markii labaad oo saraakiil aan meeshan aan ka dirno marka laga reebo ciidamada commandoska oo wujigooda koowaad aan dirnay mar labaad saas oo kale aan dirnay mar saddexaadna hadda ay ku maqan yihiin dalka walaalana ee Turkiga marka waxaa isku wadnaa ciidankii in la dhiso dhanka sheeg adiga commandoska ama sida askarta inventoryga in la dhiso waxaa haddana meesha ka marmeen in la helo abaanduulayaal ama saraakiil xigeenno oo ciidankaasi hoggaankooda qabto oo aqoon duruqsan u leh saraakiishana u jeedid waxaa lagu xulay aqoon waa dad marka hore oo sheeg adiga jaamiciin ah oo wax bartay oo qaar iyaga ka midana 2 sano runtii ay kuliyaddan Turksom ku qaatay koorsigooda oo 2 sano ah wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya iyo kaasi ah oo ka hadlayay tababarka askartan loo diraya oo saraakiishan baa loogu diraya wadanka Turkiga in ay ku soo qaataan madaxweynaha dalkaasi Tunisia ayaan eegaynaa oo Sacuudiga ku geeriyooday waan wararka Soomaalida ka baxsan madaxweynihii hore ee wadankaasi Tunisia ayaa ku geeriyooday wadanka Sacuudi Carabiya xilli maxkamadda wadankaas 35 sano xabsi ah ay ku xukuntay madaxweynihii hore ee wadankaasi Tunisia Al-Badi bin Ali ayaa ku geeriyooday wadanka Sacuudi Carabiya isagoo halkaas musaafir ahaan ugu noolaa tan iyo markii xukunka laga tuuray sanadkii 2011 Zeni ayaa ahaa
waa 83 sano jir waxauna madaxweyne ka ahaa dalkaasi muddo 23 sano isagoo madaxweynihii labaad ee wadankaasi soo maray. bin cali ayaa ka cararay dalkaasi kadib markii kacdoon dadweyne uu ka dilaacay waxaana kacdoonkaas uu ku fiday dalalka carabta oo ayaga oo xukunka hayna laga turi madaxweyneyaal badan oo muddo sanada xilka madaxtinimo ee wadamadaasi maamulayay. bin cali ayaa muddo 3 bilood ku jiray isbitaal isagoo la xanuunsanaya cudurka kansarka oo kaga dhacay qanjirka. xubnaha qoyska ee bin cali ayaa sheegaya in ugu dambeyn oo geeriyooday madaxweynihii hore ee wadankaas sida ay u xaqiijiyeen wakaalada wararka Reuters. dowladda Tunisia qudheeda ayaa ka hadashay geerida bin cali waxayna shacabka reer Tunisia u xaqiijiyey wasiirka arrimaha dibadda wadankaasi inuu geeriyooday madaxweynihii hore ee wadankaasi. bin cali ayaa maxkamadda dalkaasi ku xukuntay isagoo ka maqan xabsi 15 sano oo xabsi 35 sano ugu dambeys waxa ku geeriyooday wadanka Sacuudi Carabiya isagoo oo dibjoog ka ah wadankii oo dhowrka sano soo maamulayay. warbixinta ayaa ugu dambeysay warkii subaxna saaxiibayaal saaka Jimcaha wanageynta